Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Caruurey, sheeko cusub ayaan baranaynaa. Sheekadan waxaa lagu magacaabaa Cumar Beenaale. San ayayna ku bilaabanaysaa. Mar hore ayaa waxaa jiri jiray meel tuulo ah oo aan magaalada ka fogeyn inuu ku noolaan jiray wiil yar oo lagu magacaabi jiray Cumar. Cumar shaqo muhiim ayuu qaban jiray. Shaqadaasoo ahayd inuu ilaaliyo riyaha ay leeyihiin dadkii deganaa tuulada, isagoo maalin walba u wadi jiray daaq inay soo daaqaan. Wallaahi meeshan waa ku caajisay. Dadkii oo dhan tuulada ayay jiraan. Anigana halkan waxaan la joogaa riyahan. Alla noloshan waxaa waaye ciriiri, ayuu Cumar ku cawday. Markaas ayaa Cumar wuxuu go'aansaday inuu qorshe dejiyo oo u laabto tuulada. waraabo ayaa soo galay. Wardadow soo orda hubkiina soo qaata ee ka difaaca waraabaha aryaalkiina eryihiina way u dhammaatay. Dadkii tuulada deganaa ayaa markay maqleen oohintii Cumar ayaa soo wada orday, ayagoo waxay hub ay haysteen soo wada qaatay si ay u difaacdaan riyahooda, waraabahan ay ugu takhallusaan. Markii meeshii ay imaadeen ayaa waxay waayeen wax waraabo oo meesha jooga. Markaas waxay ku yiraahdeen Cumar, aabay waraabihii aad sheegaysay. Cumar ayaa wuxuu ku jawaabay, been ayaan idiin sheegay. Wax waraabo oo meesha joogay ma lahayn, laakiin meesha ayaa keligayga caajis igu qabtay. Markaasaan been idiin sheegay. dadkii tuulada deganaa ayay yaab iyo amakaa ku noqotay waxa uu sameeyey, laakiin way iska cafiyeen waxa uu sameeyey, wayna iskaga tageen, wayna iska iloobeen. Dhowr maalin ayaa ka soo wareegtay. Haddana mar kale ayaa Cumar uu soo qayliyey, war soo ordaay, xoolihiina way u dhammaatay. War ka gaara, waraabo ayaa soo galay. haddana mar kale waxaa soo wada orday dadkii tuulada deganaa ayagoo ordaaya hubkooda wata. Laakiin markii meeshii imaadeen sidii maalintii hore oo kale, wax waraaba oo meesha joogay ma lahayn. Markaas ay si xanaaq leh ula hadleen Cumar, ayagoo ku yiri, Cumarow, maxaa kuu diiday runta inaad sheegtid? Maxay tahay sababta maalin walba inaad noogu sheegto? markaasaa wuxuu ku jawaabay, waana cabsaday. Keligay ayaan meesha ku noqday iyo riyaha oo isla jooga. Waxaan rabay dad aan la sheekaysto. dadkii tuulada deganaa ayaa yaabay, laakiin xoogaa naxariis ayaa gashay. Inkastoo ay ka xanaaqeen kana xumaadeen beenta usoo sheegay, haddana way iskaga tageen. Laakiin waxay ku dhejiyeen inuu ninkan yahay cunug beenaale ah. Waxaa loo bixiyey Cumar Beenaale. Muddo ayaa ka soo wareegtay. Noloshan waxay ku soo noqotay sidii caadiga ahayd. Laakiin waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in Cumar haddana uu soo qayliyey isagoo ooynaya, wardadow soo baxa. Way u dhammaatay riyihii. Waraabo ayaa yimid oo cunaya riyihii ee ka soo gaara. laakiin markan hal qof oo tuulada ka soo dhaqaaqay ma jirin. Sababtoo ah dadkii tuulada deganaa hore ayaa been loogu sheegay oo ka aamin baxay waxa Cumar uu sheego in uu run yahay. Markaas ayaa waxaa dhacday in waraabihii uu soo dhex galo riyihii oo mid uu cuno kulligood. Cumarna uu meesha ka soo ordo naftiisa oo lasoo baxsado. Markaas dadkii tuulada deganaa aad ugu xumaadeen waxay dhacay. Markaasay la hadleen Cumar, waxay ku yiraahdeen, beentii aad sheegtay ayaa waxay keentay in ay lunto, inaan ku aaminno ee inaad run sheegaysid. Cumarow, waxaad noqotay qof beenaale ah. Beentaadii horena waxay keentay waxay Soomaalida hore u tiri, beentaada hore runtaada dambe ayay u baas tahay. Haddii marka hore lagugu barto been, marka dambe xataa haddaa runta sheegaysid qof ku aaminaya ma laha. Marka Cumar ayaa maalintaas wuxuu bartay muhiimadda ay leedahay runta iyo dhibaatada ay keeni karto qofka barta inuu been ku noolaado, been dadka u sheego. sidii maalintaas waxay ka dambeeyey Cumar cashir muhiim ah ayuu bartay. dadkii deegaankana dadkiran ayaa waxay ugu sheekayn jireen sheekadii Cumar ee wuxuu uu sameeyey. aakhirkii waxa ku dhacay tuuladii oo riyahoodii oo dhan uu laayay, waraabihii meesha soo dhex galay oo eber ka dhigay riyihii oo dhan. caruurey, sheekadan halkan ay noogu eg tahay. ilaa sheekada dambe aan ku kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.